kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waxaa hadda aan nasiib u helay xildhibaan Zakariya Xaaji Cabdi oo ka soo socdaalay caasimadda qaranka Soomaaliyeed haddana magaalada taariikhiga oo baaldahaba ummadda Soomaaliyeed kaga taala xasuusta guday soo gaaray maanta si uu uga qayb galo shirweynaha jabhadda gobolnimada Soomaaliyeed oo NLF xildhibaan ku soo dhaw marka hore guday oo adiga aqoon badan tahay maxaa dareemaysaa maanta guday baad ku sugan waxaan dareemayaa farxad innaba aan caadi ahayn magaaladani waxay ku sifaysnayd waa ugu imid Soomaali jacayl wanaag nabad barwaaqo ilaahay keenay oo roob iyo muxuu ahaay tubiyo meel walba yaaliin iyo oo NLF oo maanta halkan ku shiraysa sanad ka hor hal sano ka hor Dekamhara magaalo la yiraahdo oo ku taala Eritrea ayaan shirkooda kaga qayb galay maantana waa guday waa from Dekamhara to guday intaas arrin weyn weeye waa guul ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo hoyatay waxaan muxuu ahaa ugu hambaleynayaa dadka Soomaaliyeed ee halkan degan iyo muxuu ahaa ururka gobolnimada ah ee NLF iyo inta la ehel ah ambaliyaan u diraya ilaahay mahadiisu weeye guday guul baa la gaaray guushaasna in la adkeeyaa la rabaa xildhibaan guday markaad soo gaadhay diyaaradda ka soo degtay dareenkaagu sidoo ah niyow jannatul firdaws nin galay oo kalaana haye ya jannatul firdaws ha wad yani jannatul firdaws adduunka ku taala emotion galay oo kale rayn ma garanaysaa aad iyo aad ولنا سيدي فرحتي معي هيسو هذا حتى وايد دمدوميا اديا garanaysa magaalada waxaan rabaa inaan ku lugeeyo aadiya oo dadka soo arko iminkana golay dhexe oo NLF halkan ku shiraya gaarta soo booqateen yaan soo booqanay madaxdii iyo golay dhexe oo dhan hadeed waa wax lagu farxo aragtidaad ka haysatay goday iyo intay hadda la eg tahay balka war نيجو قدي أنا وهرت إلا كنت سنة 40 سنة ومقلي مال واجو هراء هو تدخل الصومالية ودقن أيسن حرهين هو أكيد أنت يوحنا تدخل الصومالية وحرة وفرحسن ويو اسمها مليا ومسير كذا كتر سنة سونا الدوينية الجمياشي NLF iyo intii la xiriirta ururo kale oo Soomaaliya iyo waliba dadka jaarka aanu nahay oo ku soo dhaweeyay hadeed waxa weeye guul weeye waana joogi doonaa intii cabaar ah qiyaamaha waa joogi doonaa anigu xamar baan ka imid iyo caasimadda qaranka salaan iyo hambaliyaan uga sida dadka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeedba waxaan rajaynaynaa in guusha la gaaray midabada loo aaso oo Soomaali oo dhan ay gaarto hadaalay wax badan baa xafaadsanayn 30 sano oo muxuu ahaa dawladnimada Soomaaliyeed burbursanay in ka sii horeysay oo muxuu ahaa meesha tan ay dadku ku jireen muxuu ahaa cadaadis iyo regimiyo muxuu ahaa dictator ah kumaysi iyo dhibaato xun baa ka jirtay maanta rabbi waka waa xorriyadu waxa ugu qiimo badan weey cunnada xataa iyada ka qiimo badan wadaad xorriyada daahaysto gaajoonta waxay ka qiimo badan tahay inaad dhiraysanto aad xorriyad hayso marka ambaliyo ummadda Soomaaliyeed way kala daadsan tahay waxa kaliya ay ku soo noqon kartana waa midnimada iyo wadajirka hadday noqoto gobolkan iyo hadday noqoto halkan aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ya midnimada ka socota dadka hadda diyaaradda aan wada saaray dad Soomaali oo gobollo badan ka yimid Soomaaliya ka yimid ka yimid waxay u haystaan magacan ooda kaliya inay sax ay tahay arrintu laakiin Soomaali oo dhan baan meesha ugu nimid aad iyo aad oo diyaaradda nala saaray ku hor u joogay marka halkan bay ka mid oogaysaa Soomaali halkan ka bilaabay shalay waxaan arkay 7 baabuur oo ka timid Boosaaso oka halka Geesaa laga yimid Boosaa laga yimid waxa laga yimid daal ku reey garow waa laga yimid Kismaayo laga yimid baydhaba laga meel walba laga yimid aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad xildhibaan ma ahsan tahay halgamaa weyn baa tahay xildhibaan Zakariya taariikhda ku qoraysa Dekamharana waan ogaa inaad timid
halganka guud ahaan aad ugu jirtay qadiyadda Soomaaliyeedna meeshaada ka sii wad واجب waa kaaga mahadcelinaynaa waana kulmi doonaa insha Allah aad iyo aad muuqaalkan waxa gaarsiinaynaa telefishinada Soomaaliyeed aad baad mahadsantahay